horyaalka Premier League xil ciyaareedkan haddii uu ku dhamaado barta uu taagan yahay ayaa ku guuleysan doona laacibka sanadka ee horyaalka. haddaba daawada aniga ayaa ku sheegi doona fadlan subscribe saar channelka nana soco mar kale isku soo noqod wanaagsan. shabakada Huun Soccer ayaa sheegtay in xidiga kooxda Man City ee Kevin De Bruyne ku guuleysan doona xidiga ugu fiican Premier League xil ciyaareedkan haddii uu sidaas ku dhamaado xil ciyaareedku. De Bruyne ayaa helay qiimeyn dhan 7.92 isaga oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah xil ciyaareedkan isaga oo dhaliyay 9 gool sidoo kale caawiye ka noqday 17 gool oo kale. halka garabka reer Algeria ee Riyad Mahrez uu soo tigsaday kaalinta saddexaad waxaana ka horeeya Kevin De Bruyne iyo laacibka kooxda Wolverhampton Adama Traore.